بسم الله الرحمن الرحيم وقوي كفتنا ودبا سعودة سلسلة ديرة كفتن كهيد وبلاوي اف مقاحشي كسو جوابين عبد الله حسن قني يو خليفة حير aniguna halkan baan in yar oo gaaban ka qayb qaadanaya wuxuu yiri gabaygan yar niman yahow rag guurmeeraya gaaf wareeg noqoy hadba gacal miidhiya halkii gaari lagu sheego iyo sahanka waxay geynayaan guri barwaaqeede goobiyaalka caashiqa ragga nagu gadaafeeyay ee haddana gurbood aan dhaliyo geefka naga doonay ma mid baan wada gursanaa gabaygu waa yaabe gal xareed leh goortuu yimaad ee gundaha laabto ee uu ka giiga ilayn dacwgu guuxaayay dadku inay gadaa noqon karaan waa u garaad xumiye guurka macaan iyo anaa gogol ka soo toosay iyo gaari bilan baan qabaa goor kastaba taagan sirta guriga ee dhowrsan oo golo la soo joojo rag dumaashidood lagu gubo lagu gujaynayo iyo gacal aan laga waabsanayn geliya diiwaanka arladoo xanuun soo gambiyey oo naflaha gooyey oo uu galaafto dadkii gobolba qaar geeyey guuldarriya waxaa taagan in dunida guudkeeda idinkoon dharaar gabay ka tirin kala gadoonkeeda salaad waliba goorteeda leh yaa giblada baaqay maxaad geeri iyo gaafaroos goob isugu keentay ma dadkaa go'ayaan ahayn idinka geeshkiin khaliifow tixuhu kaa gedmade kaana gumarooyi adoo guri leh oo gaari qaba gacallo ku hooyey rag kalaan garoob soo bariyo geeda bahalaynta dar kaloo aan qaangaadhinood gadu shirqoolayso iyo dumarkan aad gada tidheed gini ku doonayso ma geel saylad jooga habluhu gabaygu waa yaabe mise guun miyara maaganoo raadgataa tahay durba waad gariftay maxaad ruux u gacan hadin af ma gaaxshe hadalku ganiya gabayga uu sheegay cabdilaahi baa galelafee gaabis ma ahayne caqli celinta geeraaradu idinku guwaabshay gees kale haddaad ula kacdeen waa garaadliye gundihiinna yay seeftu jarin saaran gacantiin bismillaahi raxmaani raxiim waa mar labaad iyo silsiladeerada kaftanka ahayd waxaan idinla wadaagi doonaa tix yaroo aad u gaaban sidii caadada ahayd waxay tixda yar u jawaabaysaa saaxiibkay abwaan haykal ee ustaadkii weynaa waxaa markaa aan tusayaa ragga hiilkoodu inaanu ka dhabahayne uu wiirsi u yahay aana af magaxsha aanay u hiilinay markaa gabaygu wuxuu yidhi mahmaah gun weyn buu ahaa gobooda dhuuxeedu xil nin gudan karayuu gubaa gacalayaalowe anigoo ifkaa lagu goblamay weli gubtaanyaysan oo aan kollaba guur xilligan dhab ugu geeraarin gelbis iyo anoon geeri simin dunida guudkeeda bal aan gudo tix kale aan ku gano gabanka soo heesay dhurwaagii gamuun lagu kacshaa gees kasta u rooriye gu'un buu la toosee gartii haykalmuu garane guyaal hore garnayl buu ahaa gumuc sidiisiiye maantaba wakaa kala gedmaday gabaygu meeshiiye bal aan gudo tix kale aan ku gano gabashigaa muuqday niman yahow in dhaqankiisgadiyey gebi ahaantiiba birmageydo ceeb loo qastiyey lagu gadaafeeyo iyo guuldarrada taagan baa lagu gartaa jeere geelaa hashii xayl ku dhigo goolka loo tu'ine hablahoo gaddaa lala simaa waa gunnimo weyne haykalow gabdhahanaad taxdeen sida gammaan iiba gidaar kama abuurniyo ilayn geedahaa baxaye guri lagu barbaarshiyo miyaan garab xigaa joogin ma idinkaa gayaankaad rabtaan golo ku siinaya halse ila garaad liidatoo maanka geli weyday ma gaaxsade haddaad guur dhabiyo gogol la doonayso oo gargaarku adig kaa run yahay guriyagleelkiisu inta aad gayaan aanad dhalin go'e la doonayso idinkuba gabdhaad leedihiin gacalayaalowe gobannimo maxaad uga tagteen gacal walaalaynta mise nama gayaad leedihiin ee qaar kale guursha afartaa gar aan eex lahayn golo ma soo joojay qaar horeba waa tay gudheen anigigtaydiiye mar labaad ma soo galay tixdii mana ka geeraaray farxaan tiisu way gaaban tahay galab sideediiye waa nin geedkii uu fuushanaa goo isyidhi jeere gaariye kuwuu sheegayey gacal wadaagaane waa tabcaan ninkii yidhi gargaar goohay oo nacay afartaa sargooyaye waxaan hadal ku soo gaabshay kaftan godobla tixa guudmariyo goobtu waa faraxe ninka gabayadaydaa dhibsada ee weliba ii guuxa jawaab giirle kii iga baxshee cadho la goobyaala garaad xumo dadkaa ila ogaan gubashaciilkiisa bismillahi raxmaan raxiim waa mar saddexaad iyo silsiladii inoo socotay ee kaftanka ahayd markan waxaan sii gelbinayaa saaxiibkay khaliif faarax xayir oo saaka soo tiriyey gabay ah anigoo halkaasay igaga eg tahay oo bahashii waa iska daayey oo waa ka baxay isagaan sii gelbinayaa waxaa kaloo in yar aan la hadlayaa hay kaloo
oo cadhadii madax martay oo aan laakiin xaalkii iska dulqaadin waxa laga sugayay gabay ma ahayn isaga gabadh bay ahayd marka bal xaggaana isagana af magaxshe ayaan leeyahay ka faa'iideyso jaaniska weyn ee soo muuqday marka gabaygu wuxuu yidhi hubkaan ganay gamuunkaan ridiya gabawarkaan geystay xidhkaan gubay gariirkii ka baxay galowga dhiilaabay sirtaan galay gunaadkaan sariyo gebiyadaan liicshay waataan ka xidhay gabayadii wiirsadiiyo ganaye waatay gabnoobeen sidii gaanahoo kale ee goor damboo la kala hoyday buu soo gadaal kacaye waa kaa khaliif gamac nacee goo halladii waayey waa kaa gesiin hiifayee galayax feenfeentay waa kaa idaayi ay ku go'ay gabay ku soo ooyey gujanacastii waa kaa dhigee sii galbaday saaka heshiiskii uu gooyiye wakaa nabadda goobaya ninka gegi habaasliyo dagaal gulufka kuu baaqay ee gaxadh aad leefsiisay iyo gowrac filanaye ayuunbaad u gowriirsatood gabaxday meeshii ee luquntaad gembiday kaama jarin gebagabayntiiyo waa taangalkii ay naceen geliyey saafiiye ha yeeshee geddii timacaddiyo gabayaduu sheegay gacantii nin la higoynayaa way gumudantahaye mar labaad adaa soo galee galabsigaagii dhe inta aanan kuu gelin naxwaha ii guntima laaban ee aanan gantaallada ridayn gumucyo weyntayda hambalyada ii soo gaadha iyo guusha la ii siiyey gallad baan ka joogaa tixdii geedka loo yimid ee weydiinta laga gaabsadaa waa garowsadaya gudadlayntii iyo maadafirin ganac wareenkii iyo gacalkiina xaal maanad siin loo guddoon yahay ee weli sirii gurigaaga iyo gogashii maadayna allahayow ku garansiiy intii moogan godobtaada wax la yidhi nin geel raaci jiray guurna ka habsaamay oo waqii ku gaamuray ardaa dhaxantu gowlaysa ayaa loo gurmaday oo aroos loo gagaan xidhaya habeenkii markuu gooni helay godolkii loo maalay waa kii miyaango ay ku yidhi gabadhii hawshiiyo adiguna geddii baa taho gelisay diiwaane haddaad gacalku guud joogay iyo geeshu xilanaysa maxaa gabayadaadii sariir go'e ku soo koobay haddii gabadh la caashaqa inuun lagu gumoobayo ina macallin geesiye ka gees waadigii guday ee waadigii tahriib galay darteed galab carrowgii iyo geesaaskii kaa baxay kolkuu uunka wada gaadhay gogashii tacsida u adigii qaatay giniyaad ee axankii haddaad gororsatood guri ku meegaartay maxaa ceebta guudkaaga suran adiga ku geeyey halse kaa gobnoodiya haddaan gobo yar faalleeyo guuruun ma raadsado qofkii goob ka haajirayee waxa geeddi loo yahay milgaha guusha nololeeda inaan godolka diimeed adiga gororna kaa gaadhin waa kii rasuulkuba guddiyey goob cilmila aadee adaa maanku kuu guuxayaa goor kastaba taase geyigii adoon joogin iyo gobolladii hawdka hortay ruuxa sii guurayow taadu waa gocore gedgadoonka waxa kuugu wacan dhalan aan guurayna gobaadan jeclaadiya haddaad gabadhii faallaysay oo aad nikaax lala galiyo guri ku sheegayso gafkaad ula badheedhiya khaliif gudub warkaagiyo waa ugub aan weli gaasa bixin oon aroos gelina goormaa gamaan laga baxshee golaha loo waabay afartaa gorfeeyeye waxaan hadal ku soo gaabshay gobta liicda lama sii gujee go'a anoo saaray gadalooladiisii anoo weli gufaynaya haykal goofkiibuu iigu dhacay goobahan rabayee waa marka cadhada gaashaysatiyo faanka laga gooyo ee cayda uu garabsadiyo gooha laga reebo af soomaali guuniya inuu gororay mooyaane qodob laga garaabiyo ma helin gaaxdii maasada ee gantaalkiisu meel baydhsan buu gawda ku hayaayay goodiga waxaa uga wacnaa gacal walaalayne guhaadiya garmaamada intaa wuu ku raadgadanee fallaadh baan gilgila kaaga goyn gacalkayow jeere weli xaal gudbooniya waxaa saaran godob weyne nin cadgoosan waayaa tixaha waa ka garanuuge ma gaaxsade inuu aarsadiyo gabay kalaanbaanay ma gaaxsade inuu aarsadiyo gabay kalaanbaanay bismillahi raxmaan raxiim waa tixdaydii u dambeysay ee silsiladii tixdan waxaan usoo duubay hambalyo uun inaan aroos kaa dhacay iyo gaafka iyo gobonimada hambalyeeyo sidoo kalena waxaan yar xusayaa inay baasho xaggaygii u janjeersatay oo ay garteedii ku dhammaatay
wuxuu yidhi geygoo abaarsaday adoo gobolka hawd yaalla guban iyo hadduu xayska doo xeebta gudaheeda dameer laguma guuriya darmaan gaabi soo nugule ratigaa la gaadiidsadaa geedigii culusee intii aan gadoodkiya la maqal geylandirirkayga iska maarintaydii la mood dood inaan gabayee garoonkiyo markii laysku yimid goobihii dirirta geeraarradaydiyo la yaab gaardiskaan dhigayee maantana gunaanaday tixdee aan digriya guusha afartaa araar gogoldhigiyo gabayadaydiidhe hibo guulla igu daahay iyo garashadaydiidhe garaadnimo milgaha lay boqriyo guurtinimadayde gobo kalena way gaaxsantahe gorofka aan qaato haykal wuxuu gantaal soo ridiyo gumucyo liishaaman kol haddii gartii aan naqiyo taydii lagu gooyey oo aanay tiisii guddiyin golaha suugaantu waa gaax bacaad lagu lisiyo gaawahoo madhane gartayaa yaqaan iyo kolkay taagan tahay geedka miir iyo talaa lagu godlaa xaajadii gudhane inaan faanku guul keeni karin geliya taariikhda afartaa godaan helay shaxdiyo gabayadaydiidhe hibo guulla igu daahay iyo garashadaydiidhe garaadnimo milgaha lay boqriyo guurtinimadayde gobo kalena waa gebagabada halan ku soo gaabshay alla ilahe rag lama gaasiriyo geesi libintiiye gobonnimo adaan haykalow guudka kuu sudhaye garmaqaato maad noqon sidii geeshashkii jabaye markii uu la go'ay dawliskii gabannadii yaacay waa kuwii gawaankiya ku dhigay gegi colaadeede marka horeba giiryaalo fulay geesi ma ahayne kol haddaad garowsadayna tidhi waa gar xaajaduye adigaa gunaanaday tixaa gololadoodiiye guurtinnimo adaa qaata iyo shaal garaadnimoe colka goradda laalaadiyiyo gamasyadaa iishay anigoon ku gaardiyin jabkiyo gabower kaa gaadhay hambalyada inaan geystaba ila gudboonuune galbis iyo aroos loo ballamay gacal ismuuneeyey gallad iyo ducaan raaciye gabayga ii jooji